بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan taxasiyo u dirayaa aniga oo ku hadlayo magaca golaha shacabka gaar ahaan golaha joogtid oo maanta fadhiyo shirkaan haddaan u fadhino geeridiina soo gaartay qarax oo ummad lagu halaagay oo musiiba in beledweyne ka dhacday hadda fadhigan loo sheegay aad iyo aad baan ugu xunnahay arxan laawiyaashii diinta baan ka sheegtay oo ummadda Soomaaliyeed hilaag la daba joogay inay masiibadaas meesha hadda ka rideen oo dad badan ku dhamaadeen oo loo sheegay wasiir ku jiro gudoomiye ku jiro iyo shacab badan iyo ciidamo inay meeshaas ku halaagsameen loo sheegay arintaas waan ummadda Soomaaliyeed ugu tacsiyeynayna intii ku dhamatay jannatul firdaws Allah uu bashaareeyo waa shahiidin dulmi lagu dilay gacan gardaran dishay dadkii waxaas ka dambeeyay waa dad ma aragtay Ilaahay ka furtay ma aragtay ummadda Soomaaliyeed ciqaabteeda maalin kasta joogay noqdeen marka waxaan leenahay الله ونحريست أنت دمتي ومد الصومالية الصبر جميل الله إذن سيو وحن رجينا إن أمد الصومالية إن أرنتاس أنت مورال كذا دعوة عضو أرحاوياشان أرحاوياشان إن أندقال كود لقدالين أنت وحكي جوجان ساسي وضعيان أنت وحكي جوجان معلوم إن أمدك النحيان إن ما أرتي ما تلايان شعبنا لايان أيضا كمداليان أنا ومركا وحن رجينا إن رنتي هيرة أنا وأنا رنتي آدم ومحد اللي نينو سجى سلمنا والدين له والدين له يعني إسلام ما له وشر جهادي مركز للظلمية علاش هذا الجبي ما تدود للاي كعي أو رنتي ومد الصومالي ده ما تكون ديني سي ما هم علينا تاس إنه يفهم جود إياه ما أرتي مورال كود إنه وحكوا جاريان دت كاس وأهل الجنة قالك قدرنا دي شيء مركا وحن لنا هاي ولا ليال الله سمحه إلهي حقيس الله سمحه هان الله أتكيستو امتحان بان كجيرنا امتحان كاس waxaan kaga guuleysan karnaa anagoo Ilaahay tala saarano geesanimada iyo kalsoonida dagaalku galan aan sii wadno waxaan maartay ummadda Soomaaliyeed caqabada ku noqdeen meel iska saar baan kaga bixi karnaa waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad sabir jamiila insha Allah dawladda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa dhaawacgaas meesha daadsan in gurmad dhab loo sameeyo intii maartay la badbaadin kar la badbaadiyo Ilaahay baan u barinaynaa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed Allah xaqbiyo aad iyo aad baan ku mahadcelinaa dhamaan dadka akhyaarta fadhida iyo maartay ummadda ku mashquulsan aad u mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh